السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن ميل كستا oo aad joogtaan halkani waa Kalsan TV oo idinkaga imanaya magaalada Matana waa Sembol iyo Minneapolis haddaba waa kaftankii siyaasadda iyo Cali Xaraare haddaba talow maanta Cali muxuu inoo haya ayaa dad badani isweydiinayaan dad badanina waaba sii qoslayaan oo waxay leeyihiin talow Cali maanta waa xagee nin walba filo en Cali marka hore ku soo dhow barnaamijka kaftanka siyaasadda iyo Kalsan aad baa mahadsantahay Yaasino en Cali maanta maxaad noo haysaa Yaasino dumarku markay guriga ka baxayaan maxay aad isugu qurxiyaan isu dhaashaan duruuc qaali oo $500 qaarkood u gashadaan haye dahab fara badan u qaataan haye markay xaflad tagayaan ama ay magaalada dan ka yeeshaan maxay markay gurigooda joogaan iyo ninkooda ay u gashadaan diruuc shiida ama baatiya iyo kaba dacsi haye qodobkaas oo qodob ka mid ah barnaamijka aan ku soo darto haye laakiin aan ugu dambeysay isaga way waxaan ku bilaabi doonaa Muqdisho haye magaalada Muqdisho la yiraahdo ayaa meeyarka magaalada Muqdisho ayaa dad baa u tago arrimo ka soo dhameystay sax individuals marmar odayaal baa u tagay haye arrinkiiba ka hor yimid wuxuu yidhi waxaan u baahanahay dadka oo dhan barxad meel aan kula hadlo oo dhismaha meeyarka xafiiskiisa marka meeyarkii wuxuu dad fara badan ma qaabilaya haye toddobaadkiiba hal mar haye xamarna waxa ku nool 3 milyan oo qof 3 milyan oo qof baa ku nool isna imsoo qaabilaya wuxuu doonayay 3 milyan baynu arkamada 3 milyan bay ma kala duwaneed bulshada ayuu doonayaa inuu marba qayb oo ka arko uu la kulmo haye dadka qaarna wuu diiday qaar buu diiday ima garan haye haye marka ururka naafada haye dadka naafada ee Soomaalida ayaa u taga haye oo iminka waxay leeyihiin nin madaxa oo naafada qaabilsan oo gudoomiye ah oo waliba power fiican leh haye marka ninka iyo dadkiisaba uu qaabilaa toddobaadkiiba mar danaha ay ka leeyihiin uu fuliya duqa magaalada haye qaybo kale oo bulshada baa iyaguna u taga haye wuxuu qaati ka taagan yahay oo uu qaabili waayay oo yidhi ima iman karaan dadka la yidhaha barakacayaasha barakacayaasha oo la diiday barakacayaasha uu diiday haye barakacayaasha waxa weeye dad xamar Muqdisho dhexdeeda ku leh meelo qaxooti iskaga jira oo dayacan oo dhibaataysan oo magaalooyinka gudaheedu inta u soo qaxay ama gobolada kale ka yimid waa ceelasha biyaha kale ceelasha biyaha kale haye marka ninkii maayirka dad muxuu ku diiday dadka waa taas cajaayib taas isweydiin leh qolooyinka naafada uu qaabilaya haye kuwii kale arrimaha bulshada kuwii haweenka kuwii odayaasha wuxuu u qaabilaya qolooyinka muxuu ku diiday haye laba arrimood buu ku diiday haye number 1 dhibaatooyinka ay ka cabanayaan oo dawladdu aanay wada qaban karin aad far badan oo isagu madaxiisa ka weyn haye waa qodob haye iyo iyagu xafiiska markay imanayaan aan soo labisan karin dacsi waxa ku imanayaan macuus yar xafiiska maanta la hagaajinaya bedilaya ma ya xafiiska wuxuu aaminsan yahay maayir dadka uu qaabilaya in ay taay iyo koorari gashay isagoo inta lagu soo gasho marka wuxuu liidayaa dayaca ka muuqda iyo dhibaatada dadkan ka muuqda qaar baa iyagu daasadista imanaya haye marka wuxuu kuwa horta barakacayaal baa deeyay iyo iman hay keenina haye arrinka dhibaatooyin baa ka taagan haye magaalada Muqdisho haye dawladda Soomaaliya iyo maamulada Soomaalida kaleba waxa ka taagan dhibaato iyo job description qofku shaqada uu qabanaya tahay iyo positionka ay tahay lama sharxinba shaqadu iska soo masuuliyadiisa ma garanayo wasiir hebel baa tahay wasiir ku shaqo baa leeyahay haye agaasimaha ku shaqo imika arrinka jiro oo kale tusaale soo qaadan wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la yiraahdo diini waa wasiirka gaashaandhigga halka ay dhig magaalada caabud oo qalay ayaa nin baa wuxuu siiyay dhul aad u fara badan dadka ugu yeeray dadka qurbaha ee u dhashay gobolka balsi haye bilaash haye marka wuxuu ku yiri waxaad samaysataa guryo iyo dukaano iyo business meelo maartay aad ku shaqaysataan oo bilicda magaalada iyo horumarkii laga tusaale qaadanayay noqda halka ka sameeysta ana bilaash baan ku sameeyay haye okay waxa la doonayaa xariga cidii ka jar lahayd mashruucaas dadkaasna ay u qaabil lahaayeen dhulka haye mataqaana yaa u tagay oo xariga ka jaraya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Mr Diini wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliya xariga jaraya wuxuu jaraya dhul la siiyay dad
marka wasiirka hawlaha guud ayay shaqadiisa inuu soo halka tago xarig soo jaro wasiirka hawlaha guud muxuu tagay waa meeshaas reerkoodii maaha reerkoodii baan deganay wasiirka gaashaandhigga reerkoodii baa halka degan marka waa reerkoodu u shaqeeyaa wasiirka hawlaha guud waaga ay lacalla reerkoodu ay dhul iyo bixinayaan meel dhisanayaan markaas ku faa'iideysanay tagi doonaan job description kan ku hadlayna waa kan okay wasiirka gaashaandhigga imka diini haddii ciidamo laga qoray Puntland uma tagi karo waa in wasiirka reer Puntland loo diraa reer Puntland loo diraa taliyaha ciidanka Puntland waa loo diraa la yiraahdo ciidamada soo qor reerkiina baa ciidamo qoranaya marka klib yar baan doonayaa dadka inaan marka hore ka daawasiiyo wasiirka gaashaandhigga oo furaya xadhiga isagoo jooga degmada Cabudla daawashada sida uu dhagax dhiga dhulkan uu ka sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Ali Diini waxaan rabaa halkan inaan runtii ugu mahadceliyo Cabdulqaadir Faarax Cabdille oo dhulkan maanta aan joogno ugu deeqay qurba joogta inay dhistaan oo maal gashadaan waxaa kaleeto oo aad iyo aad u mahadsan gabdhaha ama qurba joogta oo ay ugu horeyso gabadha la yiraahdo Fahma Caabi warina yaab leh ka gudbana isla muqdisho wali ku jirna dadka la yiraahdo xamarka iyo saami qaybsiga ayaan eegi doonaa dadka oo dhan baa wada qalinaya idaacadaha iyo telefishinada ka qalinaya annagu xuquuqdeedii maanaan helin annaga kuraasteedii nalma siin annaga gurigii sare kii hoose kama qayb gelin annaga reer hebel baa la yiraahdaa cadkeyga iyo xubinteeda nalma siin waayahay dadka reer xamarka la yiraahdo ayaynu eegaynaa maalinta ugu farxad badan yihiin iyo maalinta ay yiraahdaan saamigeeni waynu haysanaa aynu iska aamusan iyo marka ay waayaan laba xaafadood oo la yiraahdo Shingaani iyo Xamarweyne oo ay degaan ayaa labada gudoomiyaba waa dadka reer xamarka la yiraahdo gudoomiyaha Xamarweyne ayaa la bedelay waa la bedelay waxa la geeyay gudoomiyaha waxa laga dhigay Shingaani kii Shingaani baa la soo qaaday oo gudoomiyaha Xamarweyne laga dhigay wala isku turtuur marka reer xamarkii maalinta aad buu farxaya maalinta la bedelo waxay u haystaan in wax la siiyay saamigoodii qayb weyn la siiyay marka maanta dhum sheegtana waxa ma ogido adiga ma ogido gudoomiyaha la soo bedelayno waxa loo bedelay Xamarweyne waxa laga bedelay Shingaani marka dowladda federaalka fahamtay nimanka reer xamarku inay niman iska aamusan oo aan de shida badnayn marka markay doonayaan inay dhaqdhaqaaq muujiyaan oo ay odayaashu qalqalinayaan ay baa labada la kala bedelaa kadibna waa fariiso waxay ruuxini helay marka waa fariistaan banaadir waxa la siiyay 6 kursi oo labadan aqal mid kamid 6 baa la yiraahdaa ayaad helaysaa okay 6 marka waa inay noqdaan reer xamar soma marka 6 baa la siiyay waxa la marka waxa la ku darayaa Faarax Cabdiqaadir laftiisi Faarax Cabdiqaadir reer xamar buu maaha waa reer Itoobiya inna marka hadii aydina yeelin 6 kursi oo Faaraxna ku jiro marka Faarax ugu baa noqonaya reer xamar waa la jiifiyana banaan wala jiifiyana banaan nimankaana dhibaatadaas haysata waxaan u gudbi doonaa Soomaaliland Hargeysa horta dawladdii wana ka shaqeynay wax la yiraahdo guulodeynta waa wasiirka ama agaasimaha ama ninka mas'uulka oo madaxweynaha iska dhisaya sometimes ooyaya oo madaxweynaha u muujinaya inuu aad daacad u yahay laakiin khiyaameynaya shacabka dabeetana shacabkiina markaa kan wasiirka ama agaasimihii ilmeynaya waxay noqonayaan emotional iyaguna caadifad baa galaysa waxaan ku tusi doonaa adiga dadweynaha Yaasiino nin loo dhibay hay'adda shaqaalaha hay'adda shaqaalaha inkaas markuu jaamacadda ka baxay ayaa dabeetana loo magacaabay hay'addii markii madax looga dhigay wuxuu doonayaa hay'addan uma arko inuu ummadii u shaqeynayo oo shacabkii la doonayo inuu dhiso oo wax soo saaro oo qaybtiisa qayb lixaad ka qaato laakiin wuxuu u qaatay abaal uu u galay Axmed Maxamuud Siinayo ereyada uu ku hadlayo anu markii aan eegay amaanta oo amaanayo xukuumadii wasiiradeeda iyo madaxweynaha alla ila waxaan soo malaha gabay buu tiriyay waxaan amaan ka badan waxma waa dhaaftay waa gabay buu ogtahay bal isagana isagoo qeyraysan guulodeyntiisii aynu adiga iyo dadweynaha aan tuso daawasho wanaagsan
Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxmuud Silaayo marwada koowaad ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland marwa Aamina Waris Xaaji Maxamuud Jirde gudoomiyaha xisbiga xaakimka ah murashaxa madaxweynenimo ee doorashada soo socota Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi golaha wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland oo ugu horkacayo muraayadda iyo marinka koowaad ee Somaliland madaxtooyada mudane Maxamuud Xaashi Cabdi hagaajisada haynta ummadda ee marwo Samsam Cabdi Aadan gaarsiyaha dhawaaqa dawladda meel dheer kutuuraha wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Cabdilaahi Saxafiid Cismaan Cadaani wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Cabdilaahi Ibraahim Habane wasiirka inoo qorsheeya hadba inta ina soo gasha wasiir Cali Ismaaciil Xuseen Cali Shoombe wasiirka cusub أنا قدومي هوري كانت القبض دوني قدومي هي الشغالة وسير الدولة وسارد الرماه تبدأ مدن محمد بن حلب وقرين. عرفتي. قبي وسوق بدش. وليه هرجسنا في جودة كنا. هي. ياسينو ما عنده هذا الشيء إن مردون هرجسنا تقال. صوت ترتكم ويدين ما يناد كه يستبهرتين بس إن دنك الوقت. وحرب هذا برنامج. برنامج. إيمان كدقو. ورت هيسا كدر. هيس ما كدر بدلنا. ما عاد إن اللي شيخ خليل. وزيرك أوقافته. السمالة. يا رماه دينته. أيام كحوك صاري هسي. هيس بلغ ما قاعد كربا. لما قف بحر جيس اللودي ده أنا كهلا. هي. بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر. حسبي وضني بقى واحد تجان جامعة دي ورد. بترى جامعة دي وحكور قليل. إن أنا وحلك شركة شيء كرين. بروفيسور سمتر. جامعة دي ورد. جامعة دي ورد. هي. واي مركب روحها شخصي. أقوياء هلا. وأرضي وحكوا كردينية. لكن إنك هو شخصي أرضي سوق اللي حسبي كلمية. هاول كلو بقلايبا. هاول كلو كتير. هي. مركب وين كجامعة دي لودي. هي. يلا ديني تسالسي. هي. بروفيسور سمتر. هي. قبل لا يران نستحيله. وهستا. أيها هرجيسة تكتي. هرجيسة كدكتي. هي. لكنه شو إنه دكتور سوديش. صح. kooxda la yiraahdo geeska xidigaha geeska ayaa iyaguna u qalqaaliyay ama la farsameeyay in meel loo qabto dabeetana haysto haye fiidkii waxa yimid ciidamo isku wareejiyay meesha oo yidhi nasteex meesha kama haysan karto meeshii lafteeda ka haysan isku wareejiyeen askartaas haye kama haysan karto haye marka arrinkaas uu baaday wala joojiyay haye waa maxay sababtaada haye sheekh khaliil oo wasiirka waqafta diinta ayaa ka hadlay haye dabeetana wuxuu yidhi heesaha gabadhaasi waxa ku jira heesa badan oo dhinaca anshax iyo asluubta aan waafaqsanayn haye si dhaqankiisa islaamka haye marka dib baan u eegay wasiirku muu cadaynin shuruudaha laga doonayo gabadha dowladda Hargeysa inay ka haysto gabadha badan baa ka soo haysay ina carraala tagtay hodan baa tagtay gabadha kale oo geeska ah meesha ka haysa haye kuwa kala jooga meesha ka haysa oo ka haysa waxaan suudiyay sababta loo leeyahay gabadhaasi dhinaca asluubta ma jirto haye waa maxay haye marka shuruudaha sheekh khaliil muu sheegin waxaan suudiyay shuruuduhu waxa weeye markay gabadhu heesayso inaan is ruxin waxa weeye intimaha aan soo qaawin marka intii gabdhihii kale waa kala mid waxaan markii dambe soo ogaaday sheekha laftiisaan ka helin heesaheeda heesaha qaadana sheekhu ka helin ayaan ku helin haye marka wuxuu yidhi waa la jooji marka sheekhu wuxuu ku leeyahay markaan dib u eegay erayadeeda heesaha qaar baa aad ku soo jiidanayo jacayl fara badan baa dareemaysa oo waxa ku jira sida heesta wuxuu ku leeyahay hees ay ku jirto dareenka waa halis labo anaga na wareeraysaa nimco gabadh kale oo iyaduna heestay ayaa waxay tiri oo la yiraahdo nimco dareen ayaa heesta midheeda waxa ku jira dareen ku bilaabmay dabeetana baahay iyana ma soo geli kartaa ma tegi kartaa heesta dareen baa ku jira dareen وما هيساس الدرين كتير. وين هيساس الدرين كتير؟ هذا هرجس رتبة كيس. هذا هرجس رتبة. أرمو ما ها قبيلة ما ها سياسة لكن أرمو كلام دين عجائلك يضرين كقصة. يا وين كل جدا. أي. واد مقشوا الحين السمالة أحمد محمود سيلاني اسكو شان دايب وسمي. وحل اسكو باندي وسيردي. وسيردي inkastoo dadka reer Hargeysa oo kale ay yiraahdaan siyaasiyiintu halkii loo socday lama gaarin ama wasiirada la doonayay in lala kaco lama kicin horta hawshan haddii inqilaab ka dhigno
أفر علي ها iyo waxaan isbarbar dhigay iyo isku shaandhayntan أفر علي ها هي afarta cali ها laba cali way dhulka la gashay وصعدين ها هي cali kalena way kordhisay hawshiisa هي سر وقاطع cali kalena dhooshu ku qoslo uu ku farxay هي afarta cali baan kala qaadana هي cali warcade ها. wasiirka arrimaha gudaha ها waa lala kacay وكداي cali xoorxoor ها. oo dekedaha muddo dheer isna berbera هيستي mas-uulka ها. ahaa isna waa lala kacay isna Sacuudi. labadaa cali dhulka la gashay هي wixii doonay baa loo aanay هي cali marreexaan nin la yidhaahdo ها isaga lama taaban واي mar haddii caliyada loo socdo ها dee waxay caliyada oo dhan la dhameeyo إلا نصي مرسنا هي isna sabab baa jirta dee caligaa looga tegay لو دافي ها. هي cali khaliifa buuhood la agteeda jooga ها. ayaa isna aad u dhool cadeeyey هاي oo qoslay رجع اللي سيرته لافطي wuxuu aad uga helay maya ها. wasiirkii arrimaha gudaha ها. cali warcade ها oo meeshii laga qaadayo ها nin kale oo reer laas canooda لو ديب loo dhiibay هي isagana way ka farxaysa هي isku shaandhayntaas hadba dhibaatay keentay هي waxay cabsi gelisay shacabka reer hargeysa هي isku shaandhaynta lafteeda siday u cabsi gelisay هي waxay u cabsi gelisay ها cabsida imika soo kordha waxa weeye ها waxay dadku ka cabsi qabaan ها libaaxyo halis ku keeni kara reer hargeysa هي سوي كير كرا cali warcade libaaxyadiisii ها oo gadoodsan ها oo xanaaqsan ها. ayaa labadii maalmood u dambeeyey hilibkii diiday marka arkay wasiirkii biisi ahaa ee aanay arki jirin ها oo imika maalmo madaxa u salaaxaya ها ayay fahmeen in ninkii siilaayo dee shaqadii ka soo saaray هي dabeetana gurxanka ka baxaya qaylada ها dadkii jaarka area ku dhaqnaa ها waxay ogaadeen libaaxyada ay marun soo fakan doonaan مدهرات mudaharad samayn doonaan هي hargeysa fiidka imika la seexdaa dan cali dee busushan weyn oo u qalmanaya keeni ها oo libaaxyadan hilibkoodii loo soo celiyo ها halkan halis baa ka soo socota رجع خالص بيكون هي een barnaamijkeen kaftanka siyaasadda ها waxaan mar dhexdii tegey Dubai دوي باتك ها هي dabeetana waxaan siri zuuga ها meesha xayawaanka lagu daawado ها aad soo eegtid هي dabeetana meesha xayawaanka baa tago libaaxyaa jiro oo abeesooyin baa jiro Haye. duwaayaa jiro dawacooyin baa jiro geri baa jiro oo moogta هي markaan meeshii tegey Ha. dad fara badan oo carab ah dad fara badan oo caddaan Ha. ah madow cid walba waa daawanaysa هي meel shabaqa oo annaga iyo xayawaanka noo Ha. dhexaysa ayaan soo istaagay وسوي استكت هي dhurwaa baa isoo jeeri gaadhay هي suu soo hordayey Ha. ayuu agin هي oo noqday Haye. oo igu soo noqday markaasaan ka yar wareego dhinaca kalaan tegey Ha. libaax ordiyaa ii yimi ها waxaan isla waraadhe ها dee meeshan dadkii kale lama qabsanaya هذه adiga بكسر libaaxyada maxay ku arkay ها markaa nin ziigu ka shaqaynayay baan Weydiis. ka shaqaynayay Ha. ayaan weydiiyey waxaan ku yihi niyow dhurwaayadii waa iga dhammaan la ها ما حد جرى anna meesha daawashan maxaa ka jira هي wuxuu dhurwaayada Ha. ayaa ah kuwii soomaaliya marka dee waa ku garanayaan هي dhiiggaagii inaad soomaali tahay Ha. ayay garanayaan Haye. saas dee kugu soo cararaya waa farxad indhaweed nin soomaali meesha uma iman هي مركان كان سومالي أركب مكسو يعيا ayuu ha Ha. marka dee mar hadday sidaa tahay Ha. oo xayawaankii oo dhan la soo dhoofiyey Ha. waxaan ka baqay markaa inaan daawado qaybtii masaska iyo abeesooyinka waayo iyana waa soomaaliya oo Ha. meel dhow bay kasoo dusi karaan dee وزف كان inay كرام ku hagarayaan buu doonayaan ها waa halisteeda leeyahay horena waxaa u dhacday magaalada muqdisho ها oo beri dhexdaas aan markaan diyaaradda ka soo raacay ها iyadoo Dubai bay socotay ها ayaan diyaaradda dhexdeeda waxaan ka maqlay yaasiinow cidhurwa دروي ha هي marka waxaan siri doonaya hawada sarana ها malaa waa sidoo kale makhluuq kala ku nool dhurwaayo iyo libaaxyo leh ها marka nin ag fadhiyo wadi waxaan ku yiri ها oo niyo cod dhurwaa ma maqlaysaa mise waa dhegahayga ها wuxuu dhimay way jirtaa هي waxaan waa hawada niyo dhurwaaya jooga wuxuu dhimay diyaaradda ها 3 dhurwaa baa saaran ومقدس لك كذا oo muqdisho la keenay Haye. Dubai baa loo wadaa marka هو الزود فيه waa بقى soo dhufiyay ولا حول marka baahi baa ciyaadee ku jira meesha اي لقى مسح كرد adiga يعني hawd inaad marisid baan moodaysaa اي marka اي ninka waxaan ku yiri Ah. alxamdulillah rabbil alamin Ah. mar haddaan soo raacin tan masaskay qaaday tan duwaayadaas la inoo qaato taas Haye. waa muqdisho waxyaalaha igu la yaabka badan ها ee halisna ku haya ummadda Soomaaliyeed Ha, ha. ay rabeen barnaamijkan ku daro ها dhinaca dawooyinka weeyaan ها waxaa la tagaa waddanka Hindiya ها dawooyinka la soo qaado dhan Hindiya u badan وهندي هندية Hindiya هي waxaan ku soo qaadayaa ها capsule dadku ay cunaan ها capsule ها oo caloosha iyo nabarrada waxyaalaha aan ka soo cuno ها waxaa ku dhex jirta budo dabeetana qolof bay leedahay soo ma ها India la tagaya waxaa la soo qaadanayaa intaasoo kun oo kiilo
ama jawaan oo buda ah oo dawaa la soo qaadanaya iyadoo buda markaa ha marka buda laga dhigay powder ha kabsashi qolofteedina gooni baa loo saybsanaya haye dabeetana muqdisho la geenaya haye kun jawaan oo daqiiqa ayaa lagu dhex daray markaa ma daqiiqda ahayd daqiiqda caadiga ah ba kabso laga dhigaya ayaa ma budadiiba dawada ahayd baa la isku dhex walaaqaya marka kunkii jawaan baa waxa ku noqonaya 5 kun jawaan والله dib baa loogu xidhaya haye farmashada la geenaya haye kapsul ahaan baa lagu iibinaya dadka dawooyinka Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan liqayo oo dhan kapsul daqiiq baa ka buuxda ma aha kapsul waxa cunaya ma fahamsaba haye haye marka waxa ku imanaya nin saddex xabo oo daqiiq soo liqay iyo mid isna irbadahana waxba lagu daraya marka dadkii waxa ku dhacay inta badan sababta u maqashay cudurrada kansarka ee faraha badan leeyahay cudurrada buufiska iyo waa la daba joogayo waa daqiiqdii يا حبر دقيقة ولا قدرتي markaas hadda waliba gobolada kale oo gaaraysa haye meel kale wala geynay haye iyana halistaas ka jirta meesha la yiraahdo magaalada Muqdisho oo dhinaca dawooyinka dadka dhakhaatiirta ee farmashiyada jooga qaarkood ee qaarkoodna ay ku daweynayaan ayaa waxa dhacda hab dhaxal ah dhakhtarkii iska lahaa klinigan baa dhimanaya haye waxa bedelayo meesha soo fadhiisanaya wiilkiisa oo nijaaradii ka shaqeyn jiray ayaa dhakhtarnimadiisa dhaxlaya isagu baa bahari ku soo qaaday halka laabta ka saaray masoo ku oran wadnaha boodbooday baashu dhakhtarnimada waa sida suldaanka kale waa dhaxal ina waa dhaxal haye marka dhaxalkii ugu daraa waxa haye yaasino intaan ka bixin dhinaca caafimaadka nin dhakhtar ah oo soo aan caruur dhalin baa jiray oo aad loo yaqiinay oo dadka si fiican u daweyn jiray maalinta uu dhintay klinigiisii waxa dhaxalkii soo fadhiistay darawalkiisa oo dhaxalkaana askar way 20 years baan gaari waday imisa ninkan ka maqlayay TB-da sida loo daweeyo calool xanuunka sida loo daweeyo madax wuxuu ma dush ka hayb dadana shaarkii buu hore ka soo gashay isaga ka dhakhtar ah isaga ka dhakhtar waa dhinaca dhakhaatiirta Soomaalida badankood haye gabagabadii barnaamijkeena su'aashii aan ku bilaabay ahayd maxay haweeneydu ay aad soo qurxisaa markay dibadda u baxayso oo ay gurigeeda markay joogtana ay dhar aan qurux badan u gashato ayaan iyar markaa ka tabanay way waxa jira imika qolal ay dadku ay telefoon u diraan oo culimo iyo dad kale ay su'aal ku weydiiyaan haye marka gabadh baa soo gashay nin culimo ah oo dadka markaa la hadlaya dumarka marka dumarku wuxuu ku leeyahay haddii aad doonaysid ninkaaga inuu ku jeclaado marka uu horeysa sida diinta islaamku qabto waa inaad isaga isu qurxisaa ee maaha inaad baadhiyada iyo dibadda markaad u baxaysid aad soo qurxisid marka gurigaaga qurxi haddii ilaahay ku run yahay adiguna is qurxi marka gabadh baa taladii qaadatay waxaad tiroonay meesha wax ka khariban yihiin ba ee odayga isla fahmi laadiin ba waa halka dabeetana isagoo shaqo ku maqan ayay waxay gashatay dharkii ugu qurux badnaa lahayd basi gashatay haye haye daahiyada oo dhan bay meesha ka saarto ku cusub gurigiina waa sharaxday haye daahiyada aad u gigijisay haye kuraastiba mariyo qurux badan saartay haye meesha oo dhan bay dhaqday bahal uunsiya oo cadan laga keenay nooc la yiraahdo isku soo haad ayaa jira haye noocaana waa shiday haye ninkii baa shaqada ka yimid haye dadka markuu soo galay qolka fadhiga ugu soo horeeya ee uu cagti faraha ku soo rartuu soo galay ayuu sir xaafad ka soo gashay dib uu noqday markii hore haye dabeetana wuxuu sir boorta apartmentka numberkiisa jagray reerka soo gashay dabeetana numberkii baa soo kiisi wuu galay si waxa dhex taagan afadiisii ama marwadiisii oo xural cayno eg dabeetana su'aashi halkay ka sugaysay jacayl iyo hagarayn ayuu intuu yaabay wuxuu waxaan ku weydiiyey yaa inoo yimi maanta reerka yaa ku soo biiray aye wuxuu isla martibaa timid markaasay ku tiri ciidinoo imane xabiibi daadan isu kaa qurxiyey saygaygii baa tahay naa dhegeysa buu yidhi saysay leene waxbaa khaldan waxa isha ma meel baad doonaysaa inaad tagtid mise waxaad doonaysaa mise martiba inoo imanaysa gabadhi wuu ka dhaadhici kar weyda markaa in jacayl dartii ay isu qurxisay gurigeena ay qurxisay dabeetana wadaadkii berigaa la xidhiidhay markay laba sidii samaysay ayuu ninkiina de ka booday oo isir meeshan iyo wax kalaaba jiraba gabadhi ma nin kala kaa qaaday shaki baa galay dabeetana shiikh baa la xidhiidhay waxay tiri shiikhow dee taladaadii markii aad maanta nodii soo jeedisay gurigii bay igu burburinaysaaba halis baan ku jiraa marka anaa khatar galayba waxaan sameeya dee garan maayo marka ninkii baa u qaadan lahaa dee wuxuu yidhi haddaba dhegeyso jacaylka mar qura wax lama wada jeclaadee bahasha hoos ka soo bilowo maalin daahiyada bedel marka weyga la joogo kuraasta yar bedel weyga kale
درع يرقشوا قروح بدن ويقصد حاد ذهب يرقشوا هذه إذا هل مربط إلى أنسي يسكش ده هذه بس قرحنا هذه كمان هل مربط الدقي ها مركب واحد سوستي أورك السلام هي برجع برعاص صقرة ياسينو أي بود بلا بينهم مركزي وحيد يو هود هدول قد كسوتري وقيل يو سجاري واحد بعبي أي من دين الإسلام كانوا يحكموا برعاء أي مركان قضي وين ورب عادي أي ودين الإسلام كانوا يحكموا أي واحد كانوا كانوا أي مركزي قرية سوقاتهم هذه هو وين أدتك عيا دين الإسلام كديدي والدين الإسلام كم ديدي بيقولي برعان يو دين الإسلام اللي يحكموا أبانه بالدين عيون هذا قد دايما دين العين يا الجوج مركور يا ورن دكانada hal xiro salaadi hal aado qori hal ugu qabto milkii tukan way hal dunyaan la oran horta bal laga soo bilaabo hoosta de marka gabadhi waxa lagu taliye sheekhu wuxuu ku yiri uunsigan aad cadan ka keentay ayaa ibtilada dhan keenay waasha ka soo bilow inaad daahiyada oo cascasa cadaan ka dhigtid ninku waa inuu markuu shaqada ka yimaado talaabo u arkaa moogta hal mar haddaad jacaylka banaanka soo dhigtid wuxuu isu bedelayaa nacayb isu bedelaya yaasin barnaamijkeena maanta intaas ku soo kordhay way cali aad iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaad u mahadsan tahay burco dinacayga laga daayo waayahay waa kalsan tv meesha kala socotaan waa minneapolis waa yaasiin ducaale waxaan kaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu